maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka xukun dila waxay ku riday Cabdullaahi Cali Maxamed oo kamid ahaa ragkii ka qayb qaatay weerarkii lagu dilay Cabdiweli Cilmiyare oo ahaa wadaad caan ka ahaa magaalada Gaalkacyo. Cabdullaahi magaciisa afgarashada oo Al-Shabaab loogu dhex yaqiino waxa uu ahaa Maxamed, waxaana nolosha lagu qabtay kadib markii la soo afjaray weerarkaasi oo dhacay taariikhdu markii ahayd 26 bishii 11 ee sanadkii 2018. ninkan saaka waxa uu ka soo muuqday maxkamad ku taala magaalada Gaalkacyo oo xarun u ah gobolka Mudug, halkaasi oo ay dhawaan gaareen saraakiil ka tirsan maxkamadda uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. ninkan ayaa Al-Shabaab kaga biiray degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay, isla markaana uu ka qayb qaatay weeraro iyo dilal loo geystay askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dad shacab ah sida ay sheegtay xeerlaalinta maxkamadda sare ee dalka. Siraad Wardheere waxa ay kamid ahayd dadkii xilliga ku dhaawacmay weerarkaas, waxaana dhaawaca u sii dheeraa ninkeeda oo ay weerarka ku weysay. waxay sharxaysaa xilligaasi waxay dareentay qarxi baa dhacay markuu dhacay aniga dhulka laga qaaday anigana qiyaar la'aan baa laga qaaday ani meel aan saasdana wax qashin ku dhex jiraan arkay anigana oo duduwan waa ka booday waa arkay aan noolahay waa ka baxsaday xilciyo baxayo igu soo dhow baan ka baxay ilaahay waa amarka ilaahay baa iga baxshaanay aniga shaaban karsaday qaayad laba cunug baan bartaan shaahigaas ka karsadaa. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay maxkamaddu inay u cadaatay in ninkan uu yahay dambiile shabaab ah, waxaana ay maxkamaddu ku xukuntay xukun dil ah. markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeeraryaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in dambiile shabaab Cabdullaahi Cali Aadan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan. wabillahi tawfiiq. Cabdullaahi Cali Maxamed ayaa Al-Shabaab ku biiray sanadkii 2014 waxaana uu kaga biiray degmada Qansax Dheere oo ka tirsan gobolka Baay. waxa uu qartay inuu ka dambeeyay dilka askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ka mid ahaa ciidankii u gurmaday weerarka lagu qaaday Cabdiweli Cilmiyare oo xilligaasi Al-Shabaab weerar ay ku dileen.